waa qalabyada amase hubka ay isticmaalaan basaasiinta adduunka ugu khatarsan marka ay fulinayaan dilal qorshaysan. Adduunkan aynu ku noolnahay waxa uu ka horumaray xagga tiknoolajiyadda oo marba marka ka dambeysa lasoo bandhigo wax kaa yaabinaya. Sirdoonada adduunka ugu khatarsan uguna halisaysan marka ay fulinayaan qorsho ma isticmaalaan marnaba hubka aynu naqaano ee wax layskaga difaaco. Run ahaantii waa ka mamnuuc in ay qaataan baaskoolad, mindi iyo qori iyo waxyaabo kale oo la mid ah. Daladani waxa ay kula muuqataa kuwa caadiga ah ee roobka layskaga dhigo, laakiin sida aad mooday ma aha. Dalaayadan waxa lagu fuliyaa howlgallada caalamiga ah ee ay qabanayaan sirdoonka iyo welibana basaasiinta ugu khatarsan adduunka. Dalaayadani waxa ay u shaqaysaa iyadoo afkeeda yaro hore caarada uga horeysa lagu shubayo sun khatarteeda wadata oo aad iyo aad u halis badan. Sunta yare lagu qaadayo dalaayada caaradeeda yare hore ayaa wax laga taagayaa amase lagu mudayaa sidii shil oo kale wax ku dhacay qof lugtiisa amase gacantiisa. Sidaasna waxa jirkiisa ku faafaya suntii oo uu ku qaadanayaa. Dhowr saacadood kadib qofkii waxa uu noqonayaa mid jirkiisa oo dhan uu ku faafay suntii, sidaasna wuu ku dhimanayaa. 2. Dhunkashadii dhimashada libistii baaskoolada ahayd. Run ahaantii waxa ay kula muuqataa libistani mid caadi ah oo ah kuwii dumarku ay isku qurxinayeen, laakiin sida aad mooday ma aha. Libistan waxa adeegsada dumarka sirdoonka amase basaasiinta ah kuwaasoo ku fuliya howlgallada dilalka ah. Libistan aad aragtid, libistan dusha la moodo inay tahay wax iska normal ah oo ah alaabtii dumarku isku qurxinayeen, laakiin sirta ku hoos qarsoon ay tahay in loo adeegsado dilalka qorshaysan oo ay dili karto hal qof. 3. Gang gloves. Gloveska-ni waa mid xagga dambe lagaga dhejiyay baaskoolad yar. Waxaa loogu talagalay in lagu fuliyo dagaalka qabow ee qorshaysan. Waxa uu ka mid yahay howlgallada caalamiga ah ee ay fuliyaan sirdoonka adduunka ugu khatarsan. Waa gloves xagga dambe kaga dhejisan baaskoolad. Qofkii oo aan waris ka haynin ayaa si otomaatig ah isla markaba loogu dhufanayaa baaskooladaas amase xabadaas, iyada oo ay u saamaxayso baaskoolada iyo welibana gloveskan tuumbooyin xidhiidhinaya. 4. Kabahan ayaa u muuqda qaar ah xarago amba kuwa caadiga ah ee layska xidho, laakiin sirta ka hoos qarsoon ayaa ah in ay yihiin kaba ay isticmaalaan basaasiintu. Kabahan ayaa ah kuwa ka caawinaya sirdoonka cod u duubaya meesha ay joogaan amba qofka ay markaa la hadlayaan. Sida oo kalena mararka qaar waxa ay u isticmaalaan hub oo mindi ayayba kasoo dhex saartaan. Kabahan ayaa sidoo kalena waxa ay leeyihiin kamarad u duubaysa meelaha ay joogaan markaas. 5. Caagadan biyaha ah ee hortaada ka muuqata, run ahaantii adigu marnaba kama jakideen in ay wax kale ku hoos qarsoon yihiin oo waxay kula muuqan lahayd caagad biyo ah oo iska caadiya, laakiin sida aad mooday ma aha. Caagadan biyaha ah ayaa loo adeegsadaa loona qaataa goobaha loogu talagalay in la dhigo intay wada hadalku socdaan, oo waxa ay duubaysaa dhammaanba codadka dadku ku wada hadlayaan. Sida oo kalena waxa ay leedahay kamarad ka caawinaysa maqal iyo muuqaal ahaanba in ay barta kala socdaan dhaqdhaqaaqa goobtaas iyada ah ka jira, welibana howlgalkii ay iyagu fulinayeen. 6. Cayayaanka duulo oo dhan sida duqsiga iyo kaneecada. Howlgallada qorshaysan waxa ay cayayaanku ka qayb qaataan basaasiintu sida ay iyaga laftirkooda isku basaasaan iyo qalabka ay adeegsadaan oo ay kow ka tahay cayayaanka duulo oo dhan sida kaneecada, duqsiga, shinida oo ay ku xidhaan mikrofon iyo welibana cod duubaya wada hadalka barta ka socda ee ay doonayaan in ay maqlaan. Kamarad qabanaysa dhaqdhaqaaqa goobta iyada ah ka socda oo ay barta maqal iyo muuqaal ahaanba ay kala soconayaan. Sirdoonku khatarta kale ee ay u adeegsadaan cayayaankan ayaa ah in ay sun ku mudaan kadibna ay sunta qaado, iyadoo duqsigii amase kaneecadii markaas intay hagaan iyagoo qalabkooda ka hagaya ayay qofkii ay doonayeen suntii ku qadhiinaysaa bartaasna uu qofkii ku dhimanayaa, jirkiisana suntiisa ay ugu saaqaysaa amase gaadhaysaa. Cayayaanku waa nooca ugu khatarsan amase howlgallada ugu khatarsan lagu fuliyo, kuwaasoo qaada sumaha ugu khatarsan ee la rabo in qof lagu dilo. Basaasiintu markasta waxa ay qaataan boorsooyin oo ay ugu jiraan waxyaabaha kasoo sheekeeyey oo dhan. Qalabkan ayaa waxa loo isticmaalaa dagaalka qabow ee qarsoodiga ah. Waxaa loo qorsheeyaa dadkii loo baahnaa in lagu dilo ha noqdaan dad caana amase basaas kale rabaa inuu dilo. Waqti xaadirkan caalamka ayaa laysugu xoog sheegtaa sidii waddan kasta
kasta u soo saaran lahaa application u khaas ah oo welibana horumar ay ka gaadhaan sababtoo ah waxay u isticmaalayaan in ay wax ku basaasaan sida TikTok-ga, Google-ka, YouTube-ka, Facebook-ga, WhatsApp-ka intaba waa qaar markasta adiga kula socda kuna basaasa laakiin badanaa waxa ay adeegsadaan dadka la rabo caalamka wadanka uu ka awood badan yahay ayaa ah qaar leh basaasiin iyo welibana sirdoono wadaniyiin ah wadankoodana jecel sidoo kalena waxa ay ku tartamaan wadan kastaaba in uu isagu soo saaro application adduunka dhan caan ka noqda waayo waxa uu u fududeynayaa Britole kana saacidayaa basaasida iyo welibana in ay sira ka helaan wadamo kale wadankoodana ku adkaystaan oo ay iskaga difaacaan ogaadaana dhibaatooyinka iyo welibana waxyaabaha ku soo socda waxa aynu joognaa adduun lagu tartamayo tiknoolajiyada wadan kastaaba uu rabo in uu isagu soo saaro waxyaabo cusub wuxuu doonaba ha noqdo oo aan adduunka hore uga jirin qorshayaasha la sheegayo ayaa waxa kamid ah in 2023 loo guuri doono cirka waa sida iyagu yidhaahdeen madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump waqti xaadirkan ma isticmaalo wax social media ah sababtoo ah waa laga wada xiray ama se waa laga joojiyay waxa uu soo wadaa social media isaga u khaas ah oo welibana uu isagu alifi doono ama uu sameyn doono dhawaan talow ma laga guuri doonaa Facebook, Twitter iyo welibana WhatsApp-ka daawada xagga commentiga nagula wadaag waxyaabihii kuugu la yaabka badnaa ee aanad hore u maqal ee muuqaalkan ku aragtay fadlan muuqaalkan ha ka ilaawin in aad like saarto sidoo kalena asxaabtaada u share gareysid